wax fiican baa la rajeeyaa. waxaan rajaynaynaa in maamuladaasi ay sii xoogeystaan, siyaasadooduna ay degto, dawladuna doorka ay leedahay inay doorkii dastuurka u tilmaamayey hayday inay fududeyso dawlad goboleedyadaasi dhexdooda shu-uuntooda siday u xalin lahaayeen, doorashooyinka u qabsan lahaayeen, haddii dhibaata jirta dib u heshiisiin u gaari lahaayeen, institutionska hay-adaha dawlad goboleedyadaas sidii loo xooji lahaa. dawladda doorka ay leedahay waa taas. meeshaan 3 waxyaabood oo muhiim ah oo inaan laisku khaldin u baahanaa jirta. amuur waa amuur dawlad goboleedka u gaara oo iyada ay leedahay inay qabsato ay tahay. midna waa mid dawladda dhexe u gaara oo la garanayo dastuurku tilmaamay. midna waa wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeyo oo laga kaalmaysto ay tahay. waxa ugu muhiimsan meesha jira marka waxa waa haddii niyad sami iyo kalsooni ay meesha ka jiri weydo, wada shaqayntuna waa xumaanay. wixii dadka ka dhexeeya la wada qaban karo lama qaban karo. marka aniga hadda waxaan dareemay waxay tahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada shakiyaa kala jira. shakigaasi dee in la wada hadlo, maxaan ku raha laysku nuglaado, laysku dhagajal ayay u baahan tahay. marka dawladda dhexe ayaa mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay inay dawlad goboleedyadaas garab istaagto oo sida qaanuunka uu qabo oo dastuuradooda ay qabaan oo dadkooda ay qabaan lagu garab siiyo, laakiin aanan waxna loo yeerin, aanan la jojoogin, dadka qaarkiisna aanan la riixin, kuwa qaarkiisna aanan la soo dhaweynin. yes waa run soomaaliya duruufaha ay marayso wax badan oo dhiman iyo waxyaaba qalada waa jiri karaan, laakiin dawladda federaalka waxa lagu haysto oo anaguna aan xoogaa ku dhaliilno dawlad goboleedyada ku dhigaan waxay tahay faragelinteedana way badan tahay, controolkeedana wuu badan yahay. nidaamka federaalkana waxay ahayd dadka deegaanka in loo daayo shu-uuntooda, waxay dawladda dhexe ay ku mashquulshay waxa dadka ka dhexeeya ee qaranka national issuega inay ka shaqeyso. laakiin doorasho yaroo dawlad goboleed ka dhexeysa iyaa la dooranaya aan la dooranayn iyo dadkaas dawlad goboleedka iyo maamulkooda u taalla. colaad haddii aanay jirin laisdilaynin la waxaysnayn, dawladda waxaan leeyahay rool weyn oo meeshaas uga banaan ma jiro. dawladda dhexe waxaan ayadana aan aada iyo aada ugu dhalaysannahay baawarkii dawladda dhexe inay u isticmaalayso si aan sidii habooneed ahayn resourceski loogu talagalay dawlad goboleed in la siyaasadeynaayo oo siyaasada haddii fikir siyaasadeed lagu kala duwanaaday laga joojinaayo. sax ma aha, fikirka siyaasadeed mar walba lagu kala duwanaana, laakiin marka lagu kala duwanaado wuxuu u baahan yahay in laga wada hadlo, space iyo masaaxo laga wada hadlo la abuuro. waxaan leeyahay marka dawlad goboleedyaduna dadkooda ha dhegaystaan, dawladda federaalka ana dawlad goboleedyada ha dhegaysato. deegaanka matabaan dhul ka tirsan ayaa muxuu ahaay ka socdaa dagaaladaas. dad deegaankaas ka isla degan walaalo ah oo dad muddada taariikhiyan taariikhda deegaankooda deganaa ayaa dagaalo ka dhex qaxeen, midday soo jiitamayeen. marba inaa ku dhimatay 2 biri ka hor dagaal aada iyo aada xunaa dhacay. dad aada iyo aada u tiro badan oo dadkii hore ku dhimi jiray ka badanna way ku dhinteen, kuwo kaloo ka badanna way ku dhaawacmeen. aada iyo aad ayaan uga xumahay. waxaan ka tacsiyeynayaa intii dhimatay, inta dhaawacantana allah u boogadhayaan leenahay. meeshaas marka waxaan rabaa inaan halkaan daaq uga jeediyo maamulka dawlad goboleedka hirshabeelle iyo dawlad goboleedka galmudug mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda inay u istaagaan arrintaas. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa odayaasha dhaqanka, nabaddoonada iyo culamaa udiinkaba deegaanadaasi in loo wada istaago. magaalada waaweyn ee beledweyne iyo dhuusamareeb dadka degan inay u istaagaan mas-uuliyiinta muxuu ahaa dhulkaas joogto dhan sidii colaadaa loo dami lahaa. waa colaad aada u dhib badan, khasaaro badan uu ka dhashay. haddana haddii aan la damin khasaaraas midkiina ka dhalan doono. odayaashii dhaqanka ee wanaagsanaa ee malkhabandoonada ah ee ka talin jiray waxaan leenahay mar kale xilkiina dhaata ka taliya arrintaas. sidoo kale dawladda federaalka ah inay labadaas maamul goboleed ayaduna ay ku saacido sidii colaadaas xun loo dami lahaa. colaad xun oo